dagaalo aad u culculus ayaa maanta ka bilaabmay deegaanka Laascaanood iyo waliba Buuhoole dagaalkan saaka ka bilaabmay subaxnimadii magaalada Laascaanood waxa fooda isku daray ciidamada maamulka Somaliland iyo ciidamada maamulka Khaatumo waxaana dagaalkani uu ka bilaabmay saddex aag oo kala ah magaalada loo yaqaan Gambare oo iyadoo ah dhinaca bariga iyo waliba halka loo yaqaan Gacandaar oo ah koonfurta magaalada iyo sidoo kale goobta loo yaqaan Waqdari ee hawdka hugunka madaafiicda iyo rasaasaha kala gadisan ayaa dhammaan dadka ku nool magaalada ay saaka isugu soo baxeen xaafadaha iyo laamiyada iyadoo booliiska magaaladuna ay gaafo wareegayeen dhammaan dariiqyada xaafadaha si ay u sugaan amniga nabadgelyada magaalada dagaalkii ka dhacay goobta loo yaqaan Gambare oo si weyn halkaasi dagaal aad u adag u dhaxmaray labada ciidan ee isku leynayay halkaasi ayaa waxa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba sidoo kale ay maamulka Somaliland soo qabsadeen maxaabiistooda kor ay u dhaaftay ilaa iyo 25 qof halka saddex dhaawacana la keenay isbitaalka oo midkood markii dambe dhaawacii u geeriyooday dhimashada oo aan la qiyaasi karin ayaa labada dhinacba ay jirtay dhimasho iyo dhaawac balse aan la sugi karin ciidamada Somaliland ay iyagu maxaabiistii ay soo qabteen u soo bandhigay TV-ga caalamiga Universal isla markaasina halkaasi waxa kala hadlay taliyaha qaybta 7aad ee ciidanka Somaliland taliye Mahad Cilmi Cambaashe halkan waxa jooga maxaabiis lagu qabqabtay dagaalkii maanta ka dhacay Higlada iyo Cadaada marahaanta waxaan maranayaa tiradoodu 25 waa dadkii la soo waalay ee la soo khalday ee Khaatumo iyo wax sheega jiray Laascaanood baa la qabanayaa dawlad baa samaysantay waxaan leeyahay inta baa laga xaarayay meesha dad baa lacag ku qaato dadka masaakiinta ay yiraahdaa meel dawlad ka jirto oo maamul ka jiro waa cidla waa la qabanayaa waxaan leeyahay dadkaas intii ay dadka waaleen war dadka dib ha u lugoynin oo hawaalina kaalay oo idinku Laascaanood qabta masaakiinta halka joogta iyo diraacaha ku jirta ha soo lugoynine Laascaanoodna maamul baa ka jira annaka ka talina dad baa yiraahdaa waa la haystaa iyo waa la waxe Laascaanood waa la xoreeyay iyo mar hore la haysan jiray laakiin xilligii la xoreeyay aanu nimibay xor noqotay waxaan leenahay dadkan la hadeerto kulli 10 bay u noqonaysaa intani waxaan leeyahay ha lugoynina dadka ka daaya dhibaatada iyo lugooyada aad ku haysaan waxaan ogahay in wasiir sheeganayay kala bayr lagu qabtay maanta isaguna sida warkii ugu soo gaarayo wasiirka maaliyadda sheeganayay ee maaliyadda ma jirta lacagaha la ururiyo loo dhiibi jiray waxaan markaa kaga ambabaxayaa kuwana waxaan leeyahay markii hadeer leedin lugooyi hadii tala leedin ka saaro ee ka feeyigaada kuwa kalena waxaan leeyahay riwaayadda aad u sheegaysaan ka baxa oo lugooyo dadka daayo salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh وكان يصح من لا دقمن مدير حدث واحد الوقتان من كانوا قمتين يوم تعدية ودي ويني جيستي انتي في مدح بنان بان dagaalkan maanta ay sidoo kale ciidamada Somaliland waxay sheegteen inay ku soo qabsadeen gaadiid dhowr ah oo isugu jira kuwa tiknika ah iyo kuwa xamuul ahba Abdiqani Xasan Faarax Abdiqani Gadari telefishinka caalamiga Universal TV magaalada Laascaanood
شغل يلا